السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel kastaba ay joogaan. Ilaahay waxaan ka baryayaa ummadda Soomaaliyeed inuu Ilaahay nabad dhex dhigo iyo wanaag. oo colaadahan iyo dagaalada tan badan oo halaaga ah inuu Ilaahay ka joojiyo. Ilaahay nasri khayr qabo soo dejiyo insha Allah. Soomaalidu isku dhamaatay. caalamka qoslayaan dusha laga daawanayaa. waxaan arki jiray Suudaan markay isleenaysay iyaga oo inta soo baxaan hadba meelaha istaagan gul leh. wala yaab jiray wallahi oran jiray waxa kan dhicif saram xayeen wax yay sheegayeen waxa iyaga dadkooda leenaya guushan iyo waxaan dhaqdhaqaaq ka sharci la taagan yihiin oo yay sheegayeen nidaamka dhici jiray oran jiray yay sheegayeen wax kan iyaga dadkooda leenaya sidaas oo kale imka Soomaalida lagu qoslayo caalamku daawanaya iyagoo saas u dabaxaya isu gowracaya aakhiriya adduunkana waa seegeen. Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu kala qaboojiyo dhulka kanay ku dagaalamayaan oo dhul ay ka tegayaan maamulo iyo waxayna garayn bal lagu wasay oo qiyaamad ku dhacay waxay ku dhamaanayaan. maamuladii hore wax ma tarin waxay yihiin ma jirto waa kuwa halka taagan cidaan wax ugu maqnayn. Soomaalida dayacay darxmo dhamaatay dhaqaale la'aan iyo tacliin la'aan iyo horumar la'aanba. marka maxaan leeyahay maxay ahaydee Ilaahay sahlo ummadda islaamada Ilaahay bogooda baracada Soomaaliya aamin dhahay kuna aamin insha Allah bismillaahi kariim. inta ka bacdi waxaan ka hadlayaa waxaan maqlay Xasan Sheekh la yiri maxay ahaydee Turkiga intuu tagay Turkiga khasbay ku yiri Itoobiya badda oo saxiix خصم دي خصم نندمير العلم ما خص في كرتة وحي اللحوة الواشيل الكيس دكتور لقوا قلا ما كان واحد لقاه في وياه ويجي ما يبغى أنا قانون ما يبغى وأكيد مدة دالي برجع ويدو مدة صومالية دو حمر أنتو صبحي رجل عروري وياي بريس كده عرور دو حمالنا يجي عيد والبا أنتو مناكو صار مالهم والبورن شري قيلية هضلة وقيلية بدل لبحيه بدي ولا بحيه غيليه كعاي مدة Soomaaliyeed inta indheer garadka ah waxa sheegayeen warkayeen markiiba inuu soo warwayo lacag ku qaato ee wadan danka leeyahay aanay jirin maxay ahaydee kabigiis oo yahay xaraash iyo xoolo jaban way shaqadiisu يوم حال عنتاهم بس عيد وحق مغير ما شفته فالحمي نصه هي مع الحمى محي هيدي قيمة الناس بوصل كل عام أنت ما حاولين فرماتي شو غيبة تدخل ملح قرقاضي واتي سعود يريس أنت سملين غاضو هاي هيدي 6 مليون فما شلو يرقى هذا بريء وقصدي وحياة طول ها وقدر وشر بالوير بحياة دي حيرك 6 مليون من كسينا 6 مليون ما حي 6 من ده 6 مليون 6 مليون وإنه أتو ديدو يرمى يعني لو أنه ولا لا نحن قلنا ما شغلة أنا ما waatu yiraan dadkayga anu shaqeeya dawladda anu shaqeeya ma jirto dawladda walbana wadada dariiqada mariyay waana soo fargelinay yiri anu madaxweyne Soomaaliyeed baan ahay dadkayguna dad Soomaaliyeed waxaan anigu maslaxadaydu tahay wixii dantayada abis deebaantay ugu darayd odaga Xasan Sheekh haduu yahay qof aan dabiici ahayn wax ka qabo madax maxay dadkii maxay ahayd ehelkiisii qaraabadiisa u geyn waayeen dhaqaatiir baadha سيدة دبيعكم سيدة ومدة Soomaaliyeed magaceedu waa dilay wadankeena waa la wada qaatay ciidamadii dadka shicibka dagaal bay ku dhamaadeen meel walba saas dagaal ka dhacay bari hore waxa maqal jiray markii Xasan Sheekh marka uu yimaado ama uu joogo madaxweyne yahay mana arki jirin marka iskaasiinta iyo waxa soo jirin
dadku waa isdilaan dagaal baa bilaabma qabiil baa bilaabma qabyaalad baa bilaabanta waa la isdilaa xaqiiq bay noqotay maantaanu arkayna wataa dhacaysa meel kastaba ka dhacaysa marka waxaan leenahay isagana ilaahay ummadda ha dhaafiyo iyagana bogooda barcda ilaahay isu mariyo ilaahay wadanka ballaaran buu ka dhigay waa badiyay wadanka meel wali waa bannaanta bisan dhul baa la isku diraya waa la leeyahay inta labada magaalo wax loo kala socdaa intaas saacadood laba magaalo kasta Soomaaliya degto misna wata intaas la isku diray la isku cunayo Soomaaliya ilaahay hadiyaan leena assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh